shir socday muddo 2 cisho ah oo ay ka soo qayb galeen madaxda rugaha ganacsiga maamul goboleedyada mas'uuliyiinta sektarada ganacsatada waaweyn ee dalka iyo madaxda ugu sareysa rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ayaa xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen shir iyo is-xogwaraysi iyo wada tashi kaasi oo ku saabsan xaaladda abaaraha wadanka arrimaha doorashooyinka iyo doorashada hoggaanka rugta ganacsiga oo dhawaan la filayo inay qabsoomto gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin ee Gabayre ayaa ugu horeyn faahfaahiyay shirka isagoona sidoo kale baaq ku aadan arrimaha abaaraha u diray ganacsatada waxa halkan isugu yimid madaxdii rugaha ganacsiga ee maamul goboleedyada oo ah gudoonka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintii ganacsatada ugu waaweyneed wax kalena ma ahayn wax isugu yimaadeen inay is-xog wareystaan tashadaan barnaamijka abaaraha iyo howlaha socda ka tashadaan barnaamijka howlaha doorashooyinka iyo waqtiga oo rugta ganacsiga asaguna hadda soo dhawaadana ay ka tashadaan baaq oo ah ganacsatada Soomaaliyeed inaan u diro waxa lagu jira xaalad aad u dhib badan oo abaaro oo dadkeena iyo dalkeenaba ay dhiban yihiin waxaan rabnaa marka ganacsatada Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay waqtiga abaaraha waa bilowdeen waa ognahay in guddiyo aan u sameeyno wax socdaan laakiin haddana intaas ka badan in la sameeyo rabaa oo barnaamijkaas abaaraha aan la degdegno si dadkeena iyo dalkeena loo badbaadiyo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ahna gudoomiyaha rugta ganacsiga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamed Caydiid Jaamac ayaa isaguna tilmaamay in xilligan ay isbiirsadeen xaalado badan sida daraadeed aysan xilligan munaasib ahayn in doorashada rugta ganacsiga la qabto waxaan la isugu yimi caasimadda dalka ee Muqdisho falanqeyn badan kadib tashiyadii gudoonka rugaha ganacsiga ee maamul goboleedyada iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed ay isla falanqeeyeen xilli qabsoomidda doorashada rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaa la isla gartay markii la eegay xaaladda waddanka ku jiro oo ah abaaraha baahsan ay ku baahay dalka Soomaaliya doorashada ka socota waddanka waa runtii wali saldhigan saameyn badan ku yeelan karta inay qabsoonto doorashada rugta ganacsiga Soomaaliyeed baabulka ganacsatada iyo xiriirada caalamiga ah oo la rabay in dhamaystir fiican lagu sameeyo oo qabyo ahaa waxaa la isla gartay inaanay xilligan noqon karin xilli ay qabsoomi karto doorashada rugta ganacsigu sidaas darteed markii la ableeyay oo dhinacyo badan laga eegay qabsoomidda doorashada rugta ganacsiga xilliga ay ku habboon tahay waxaa la isla qaatay inay noqon karto in muddadaas gaarsiin la sameeyo noqon karta in 8 bisha Maarch 2023 ay dhacdo doorashada rugta ganacsigu asimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Abshir Cabdi Dhoore ayaa qoraal ku faahfaahiyay waxyaabaha ay isla qaateen madaxda ganacsatada iyo shirkooda waxa uu markaasi ku soo gabagaboobay marka u horeysa 30 maalmood oo soo socda dowlad goboleedyadu inay soo xulaan 7 qofood oo shaqadaas aadi doona 7daas qofood oo aqoon durugsan u leh cilmi baarista sida loo sameeyo 3 darajo ayayna mari doonaan cilmi baaristaas 4 bilood oo u horeysa waxa la ururin doonaa talooyinka iyo tusaalooyinka ay hayaan dowlad goboleedyada rugahooda ganacsiga marka la soo ururiyo 4 bilood oo ku xigta aqoon-yahanadu waxay u fadhiisan doonaan in ay soo saaraan akhbaarihii ay soo ururiyeen ayaga oo u bedelaya tala soo jeedin ay u baahan tahay rugta ganacsiga markaa kadib waxa la abaabuli doonaa shirweyne ay ganacsatada Soomaaliyeed isugu imaan doonaan oo qaadan doona naftirkiisu dhowr bilood in la isugu keeno ganacsatada 200 aan ka yarayn magaalada Muqdisho halkaas waxa ka soo bixi doona sida ay rugta ganacsiga u shaqeyn karto ayadoo lagu saleynayo wixii 10 sano u dambeeyay aan qabanay sidee 10 sano ee soo socota rugta ganacsiga ay u shaqeyn doontaa maxaa laga bedeli doonaa xiriirka rugta ganacsiga iyo caalamka maxaa laga bedeli doonaa xiriirka rugta ganacsiga iyo dawladda Soomaaliyeed maxaa lagu soo kordhin doonaa xiriiradaas iyo horumarintooda iyo xuquuqda dadka ganacsatada ah ee wadankan degan ee waajibaad fara badan wadankan fuliya sida darteed waxa ay waqtigaasi oo ka soo baxay
markii aan qiimeynay aragnayna in dowladda Soomaaliya golayaasheedii in loo caga dhigo inay qaadanayso waqti inay qaadanayso sidaa darteed maadaama waqti firaaqa ah oo ay golayaashii dowladda ku istaagayaan oo soo baxay waxaan u qaybinay shaqada inaan ku qabanno kuna soo saarno rug cusub oo la tartami karta rugaha ugu yaraan ka dhisan regionka iyo qaaradda Afrika sidaa darteed madaxda halkan fadhida shaqadii ay labadan maalin qabteen waxtar weyn ayaa ka soo baxay waqtigaas aan sugayno in la helo golayaashii dowladana shaqadaas aan ku mashquuli doonaa waxaana ka soo bixi doona oo la jaan qaadi doona dowladda cusub rug casriyeysan oo markaa kadib loo sameeyo maamul ee dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin aad iyo aad aan u mahadsantihiin